shirkan ayaa waxa uu socday muddo ku siman 8 saacadood oo xiriir ah oo aan loo kala kicin wuxuuna u dhaxeeyay wasaaradda duulista Soomaaliya iyo madaxda sare ee shirkadda Vavori oo gacanta ku haysa maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cabdulle Cismaan. dib ugu noqoshada heshiiskii ay kula wareegtay maamulka garoonka ayuu ajandaha ahaa iyo waliba inay jiraan dulduleelo badan oo ka muuqda heshiiskaasi taasoo aan dan u ahayn dalka Soomaaliya. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar ayaa iiga warbixiyay ajandaha shirkan laba geesoodka ahaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. aad iyo aad u mahadsantahay Salmaan. markastana halkan waad nagu soo dhaweysaa arrimaha Soomaaliya runtii interest baad ku tahay aad baa mahadsantahay. laba waxaan ka soo qayb galnay shir aan la yeelanaynay shirkado Turkish ah oo Soomaaliya ka shaqeeya ugu horreysay shirkadda Vavori oo maamusha airportka Muqdisho maalgelisayna shirkadaasi waxaa lala galay heshiis 2013 waxaan u joognaa in aan heshiiskaasi aan dib u eegis ku sameyno oo aan heshiis cusub sidii loo saxiixan lahaa inta uusan dhammaan sanadkan gudihiisa ayaan ku jirnaa. heshiiska cusub oo rajeynayna inuu ahaan doono heshiis macquul ah oo dawladda Soomaaliya runtii wax u tari doona dowladda kale. wasiir Omar ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dulduleelo badan oo heshiiskaasi ka muuqda iyo waliba waxyaabo badan oo shirkadda Vavori aysan fulin. dulduleeladaasi runtii maadaama hadda aan ku jirno negotiationkii wada hadalkii aan ku jirno waxaan rabnaa hadda wixii laga bilaabo sidii loo saxi lahaa waxaa ka mid ah oo jiray ballanqaadyo in dukaamo for example laga dhiso terminalka hortiisa oo kale oo iyaga ahayd inay qabtaan aanan wali la qaban. waxaa kaloo jira airportka naftiisa horumar kale ka baxsan terminalka buildingka dhisan ka baxsan oo banaanka ah oo badan oo loo baahnaa in la qabto waqtigiisa inaan lagu qaban way jirtaa iyagana waxyaabo badan oo ay soo kordhiyeen oo inta la filayay ka badan ay sameeyeen laakiin runtii dhinaca dawladda mataleen anaga shacabka Soomaaliyeed matalayno waxyaabo loo qaban lahaa oo aanan la qaban ayaa jira. waxyaabahaas ayaa wax ku soo dareynaa iyo also la xisaabtanka haddii tusaale ahaan ay ka soo daahdo boorsadaada oo diyaaradda keentay oo Muqdisho taala inaad sugto 2 saacadood aad ku sugto airportka gudihiisa oo kale muxuu yahay consequence waxyaabaha shirkadda mas'uuliyadeeda ma caddo waxyaabahaas oo ay sababtoo waxa laga yaabaa xilligii la galay heshiiskaasi laguma fikiraynin shacabka qabashadooda dhinaca customer satisfaction ka wax la yiraahdo dadka service-ka loo qabanayo oo kale imisa saacadood oo qofku taagnaan karaa si uu u helo boarding passkiisa oo kale hadduu rabto qofku inuu cabasho sameeyo xaguu ku qaban karaa oo kale waxyaabahaas oo dhan oo aan kontraadi hore aad ugu cadeen ayaa hadda xaqiijinayna oo cadeynayna dowladda. intuu wasiirku uusan soo gaarin magaalada Istanbul ee dalkan Turkiga ayaa waxa uu shir caalami ah kaga soo qayb galay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. shirkaasi ayaa waxa looga hadlayay in lacagaha hawada Soomaaliya ka soo xarooda ay ku soo dhacaan gacanta dawladda Soomaaliya. jeedadu waxay ahayd hay'adda ay ka muddo badan qabanaysay dhowr iyo 20 sano lacagta Soomaaliya hawadeeda aruurinaysay waxay ahayd ujeedada in laga soo wareejiyo si toos ah lacagta laga qabto diyaaradaha mara hawada Soomaaliya in dawladda Soomaaliya loo soo shubo. alxamdulillah waxaan aad ugu faraxsanahay runtii inaan idin sheegay in arrintaas ay soo dhamaatay. xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay bilowday in ay la xisaabtanto isla markaana ay dabagasho heshiisyo hore ay qalinka ay ugu duugeen xukuumadihii hore ee dalka maamulkiisa soo hayay. سلمان جمال سعيد TV عالمي Universal مقالة اسطنبول.